wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Al-Shire ayaa xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ku qaabilay xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden oo weheliyo safiirka Soomaaliland ee dalka Sweden iyo safiir sharafeedka Soomaaliland magacawday midowga Yurub. kulankan qaabilada wasiirka ay ku wehelinayeen wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda, wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ahaa kulan isku xog wareysanayay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya dalka Sweden iyo sidii loo xoojin lahaa iyo xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden oo ujeedada ugu weyn u yimid ahayd sidii uu xiriir ugu furi lahaa baarlamaanka Soomaaliland iyo dalka Sweden. kulankaas soo dhamaaday waxa warbixin kooban warbaahinta siiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Al-Shire wuxuu tilmaamay ahmiyadda uu kulankani leeyahay iyo xiriirka ay Sweden la leedahay Soomaaliland iyo kaalinta ay ka qaadanto dhinaca horumarka Soomaaliland. waxay noogu yimaadeen inay maxay xubinta ka tirsan baarlamaanku inuu wadanka uu yimaado in la kulmo indheeyo xaaladiisa siyaasadeed iyo xaaladda abaaraha iyo laftigeeda. Sweden waa wadamada aad iyo aad inoo taageera, inta badan lacagta waxay noo soo mariyeen jabada qurumaha ka dhaxaysa hay'adaha samafalka, laakiin mashaariic fara badan iyagu ay maalgeliyeen baa wadanka ka socota. waxaan jecelahay fursadan inuu ka faa'iideysanayo in halkan uga mahad celiyo dowladda Sweden iyo maxaan ilahay dadka Swedenba gaar ahaan waxaan jecelahay in halkan aad uga mahad celiyo maanta xubinta baarlamaanka halkan noogu timid Magnus iyo Michael iyo wafdigiintiisa kaleba. xildhibaan Magnus ayaa isaguna dareenkiisa ka hadlay si kooban, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Soomaaliland yimaado oo kulan la qaato wasiirka arrimaha dibadda. wuxuu tilmaamay in markuu ku noqdo dalka Sweden uu si wacan warbixin kooban ula wadaagi doono golaha baarlamaanka dalka Sweden. wuxuu tilmaamay inuu kulankan ahaa mid aad u muhiim ah oo xidhiidh fiican u furaya Soomaaliland iyo Sweden. Situation here in Somaliland is very important to me to go back to Sweden and tell the truth about situation here. I think it's very, very important because many Swedes not know about Somaliland. They tell to me, Somalia? No, Somaliland. What? So it's very, very, very important for me to tell my friend, my colleagues in the parliament in Sweden about situation and the good land this land, Somaliland is. Xasan Faarax Qamaan, Cabdi Cumar Jibriil, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.